بسم الله الرحمن الرحيم. قدوميها قلها أقل كسرات دولة فدرالية الصومالية، قدوميها برلمان كدولة القلمدو، حبناها برلمان كاللبضة قلها دولة فدرالية الصومالية، labada gole ee dawladda galmudug golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka maayarka iyo maamulka caasimadda saraakiisha sarsare iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay munaasabadan dhalinyarada gabdhaha salaadiinta odayaasha dhaqanka culimaadudiinka inta qaybood lagu fadhiyo intaan sheekh xusay intaan xusinba bahda saxaafadda fanaaniinta sharafta leh dhammaan magac kastoo looga soo qayb galay munaasabadan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaan u mahad celinayaa si gaar ah gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo wafdigii ballaarnaa oo hogaaminayay oo nagala soo qayb galay munaasabadan furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda galmudug. gudoomiye adiga iyo wafdigaagu soo dhawaada, waana ku mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan qaaliga ah. waxaan u mahad celinayaa baarlamaanka dowladda galmudug gudoomiyihiisa iyo guddoonka iyo baarlamaanka sharafta leh iyo xukuumadda galmudug dhammaan bulshada ka soo qayb gashay sida sharafta badan ee shaqadii aad iyo aadka u sarreysa loo soo qabtay muddadii gaabneed ee galmudug ta cusub la dhisay. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. runtii waxay noo tahay habeen weyn inaan caawa isugu nimaadno munaasabadan furitaanka kalfadhigii labaad baarlamaanka labaad ee galmudug oo runtii nagu qaali ah, iyadoo sida la xusay ama la wada ogyahay ay galmudug gaartay guulo waaweyn oon alla subxaana wa tacaala uga mahad celinayno. waxaan halkaan rabaa inaan kula wadaago dhammaan madaxda iyo baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada anin yar ka xuso ma dul istaago waxqabadkii iyo howlihii noo soo qabsoomay muddadii koobnayd, taasoo noqonaysa waxaan dib loo xasuusanayo ama dib laysu xasuusanayo laga dharagsan yahay ama la wada ogyahay, iyadoo aan reer galmudug oo dhan uga mahad celinayno meel ay joogaanba qof walba qaybtu ka qaatay iyo ummadii Soomaaliyeed oo taageertay intaba. ugu horeyn waxaan ku salaamayaa magacayga iyo magaca shacab weynaha galmudug iyo dowladda galmudug. sharaf weyn bay ii tahay inaan idinkala soo sidaan ognahayba labaad ee baarlamaanka dowladda galmudug oo runtii nagu ah munaasabad aad iyo aad u qaali ah, ahna munaasabad dastuuri ah. furitaanka kalfadhigan wuxuu ku soo aaday annagoo maalmo ka hor u dabaaldegnay sanad guuradii 14aad aas-aaska magaca galmudug. dad baan la yidhaahda galmudug waxay dhalatay 5 sano laga joogaa, 5 sano midayntii iyo midowgii galmudug iyo wax wada lahaanshihiia laga joogaahe magaca galmudug waa 14 jirsada. waxayna ka soo qayb qaadatay galmudug munaasabado waaweyn iyo shaqooyin waaweyn oo waddankan looga gudbiyey xaalado adag ayay ka soo qayb qaadatay. waxaad si dhow ula wada socoteen howlihii iyo shaqooyinkii waaweynaa ee noo qabsoomay muddadii 7 bilood oo wax dhiman la soo dhaafay ka soo gabagaboobay
guul dhinacyo badan taabanaysa. haddii aan wax yar qodob u dul istaago ama aan xuso mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha, markii aad noo idmateen mas-uuliyadda hogaaminta galmudug waxaan ballan qaadnay in aan ka shaqayn doono sidii loo midayn lahaa galmudug xag deegaan mid siyaasadeed aniga oo u maraya hannaan dib u heshiisiin dhab ah. waxaa noo suurto gashay inaan xaqiijinno dib u heshiisiin ama dhab heshiisiin siyaasadeed oo horseeday galmudug mid ah, taasoo dhinacyo badan ay ka qayb galeen hogaamo, mas-uuliyiin, siyaasiyiin, saamiley siyaasadeed dhinac walba ay ka qayb galeen, keentayna galmudug oo mid ah, oo xasilan, oo siyaasiyan u xasilan. sidoo kale waxaa noo hirgalay dib u heshiisiin bulsho oo ay noo qabsoomeen shaqooyin waaweyn oo taariikhi ah, halkaas oo beelo walaalo ah ku dhammeeyeen colaado muddo dheer soo socday. waxaa si gaar ah runtii mahadcelin u mudan inay dad halkan fadhiya iyo dad badan oo maqan oo reer galmudug ah ay gacan ka geysteen oo ka qayb galeen heshiisyadaas masiiriga ah ee bulshada dhexdeeda ka dhacay oo guulo waaweyn oo dib u heshiisiinna laga gaaray. sidoo kale waxaa noo yaalla ama noo madlan goglo nabadeed oo bulsho oo aan rajaynayno inay guul waaweyn laga gaaro, iyadoo gogluhu ay mar walba noo furan yihiin oo dib u heshiisiintu aanay dhammaanayn inta ay jiri karto khilaaf yar oo ka dhexeeya dad walaalo ah oo reer galmudug ah meel kastay joogaan. geedi socodka dib u heshiisiinta halkiisa ayuu ka sii socon doonaa, waana noo madlan yihiin goglahaas iyo dib u heshiisiintaas. sidii bulshada galmudug u wada noolaan lahaayeen nabadgelyo, walaaltinimo, hadda waxaa madlan sidaan hore u sheegnay goglo nabadeed oo runtii aan ka sugayno natiijooyin degdeg ah oo ay gacanta ku hayaan hay-adihii u xilsaarnaa ama u qaabilsanaa galmudug inay taabageliyaan ama ay qabanqaabiyaan goglahaas, ayna isugu keenaan dadka walaalaha ah ee meelaha qaar dhibaatooyin ku dhex mareen. arrimaha amniga waxaan ku guulaysanay inaan xaraynay ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaanada qaar, iyadoo inta dhimanna la xarayn doono oo gacanta lagu hayo inay soo xaroodaan oo qaybaha waaweyn oo muhiim ay noo dhiman yihiin. waxaa mar dhow qali jebin doona ururada tababarka galay ee horseed, shabeel, ciidamada daraawiishta galmudug oo tababarka ku kala qaadanaya dugsiyada Indhaqaris iyo Dhankaroone. dhanka kale waxaa noo socda qorshe ay wado wasaaradda amniga oo lagu aas-aasayo ama lagu dhisayo ciidanka booliska galmudug, kaasoo la filayo inuu mar dhow hirgalo ama qabsoomo dhismihiisu, oo aan rajaynayno inuu taabagalo waqti aan dheerayn insha allah. sidoo kale magaalada Hobyo waxaan isugu geynay ciidamada booliska ee u tababaran badda, arrimaha badda, ilaalinta xeebaha galmudug, kuwaasoo u diyaarin u nahay inaan tayayno, qalabayno si ay u gutaan, u howlgalaan sugidda amniga xeebaha dhaadheer ilaahay ku manaystay galmudug oo ay ka jiri karaan waxyaabo sharci darro ah si hor istaagaan. dhinaca kale waxaa socda ciidamada booliska oo ay wadaan la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato baahsan ku haya da'yarta reer galmudug, qaybna ka noqda xasilooni darrada iyo dembiyada. waxaan baarlamaanka hor keeni doonaa hindisa sharciyeed la dagaalanka maandooriyaha
oo muhiim u ah badbaadinta dhalinyarada iyo jiilasha soo koraya ee galmudug. dhanka kooxaha argagixisada waayadan dambe waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo naflacaarinimo ah. waxaan bogaadinaynaa dadka reer Bacadweyne iyo Shabeelow oo si geesinimo leh isaga difaacay weeraro ay ku soo qaaday argagixisada kuwaasoo qaadeen jidkii jabka. dadka reer Galmudug waxaan ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan garab istaagga ciidamada amniga si argagixisada uga xoreyno deegaanada iyo dadka ay dhibka ku hayaan ee ay kor fadhiyaan muddada dheer. waxaan ugu dambeyn halkan ka bogaadinayaa ciidamada amniga ee kala duwan ee har iyo habeen u taagan sugidda amniga, ilaalinta xasiloonida dadka iyo deegaanka Galmudug. dhinaca cadaaladda waxaan ku hogaaminaynaa Galmudug cadaalad, sinaan, ilaalisa xuquuqda dadweynaha reer Galmudug isla markaasna gudata waajibaadka kaga aadan ee dhammaan deegaanada iyo dadka reer Galmudug. annagoo taas ka amba qaadayna waxaan bilownay dhismaha hay'adaha cadaaladda Galmudug kuwaasoo ah saldhigga midnimada, iyadoo aad ka war haysaan in maalmo ka hor aan magacaabay guddoomiyihii maxkamadda sare ee Galmudug iyo xeeraalyihii guud ee Galmudug, iyadoo la dhammaystiri doono dhammaan hay'adihii garsoorka ama hay'addii garsoorka. arrimaha dhaqaaluhu waa udub dhexaadka dowladnimada, la'aantiisna horumar socon karaa ma jiro. sidaa awgeed waxaan ku guulaysanay arrimaha soo socda. 1. waxaan meel marinay miisaaniyadda 2020 oo aan kordhinay in ka badan 90% marka loo eego sanadihii hore. 2. waxaan dardargelinay dib u habaynta nidaamka maamulka maaliyadda oo hadda maraya meel aad u wanaagsan. 3. waxaan ku guulaysanay dhammaystirka xeerka dakhliga oo jaangoynaya dhammaan noocyada kala duwan ee canshuuraha, iyadoo bisha soo socotana ay bilaaban doonaan haddii eebba idmo qaadista canshuuraha noocyada kala duwan. 4. waxaa la mideeyey nidaamka ururinta dakhliga oo hadda si daahfurnaan iyo isla xisaabtan leh loo qaado, iyadoo aysan jirin canshuur lagu qaado kaash ee la marsiiyo dhammaan wixii dakhli ah qasnada dhexe ee dowladda Galmudug. waana arrin bogaadin mudan oo weliba aan ku bogaadinayo wasaaradda maaliyadda. ugu dambeyntii waxaa la kordhin doonaa dhaqaalaha canshuuraha iyadoo la marayo nidaamka shaqaalaysiinta hufan, waana arrin wax ka bedeli doonta shaqo abuurka dhalinyarada iyo dhammaan reer Galmudug. arrimaha dhismaha golayaasha deegaanka. walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin horumarka degmooyinka Galmudug wuxuu ku xiran yahay dhismaha golayaasha degmooyinka iyo helista maamullo ay soo doortaan bulshada deegaanada oo dhammaantood isku waafaqsan yihiin ama ay raalli ka yihiin. wasaaradda arrimaha guduhu waxay 3 bilood ee ugu dambeeyay ku mashquulsanayd soo dhisidda golayaasha degmooyinka, waxaana heer gabagaba ah maraya dhismaha golayaasha deegaano dhowr degmo oo ka mid ah Galmudug. ugu dambeyntii waxaad ogtihiin in Galmudug ay ku guulaysatay martigelinta iyo kamira dhalinta shirarkii Dhuusamareeb 1, Dhuusamareeb 2, Dhuusamareeb 3 oo looga gudbay marxalad adag ee Soomaaliya uga gudubtay.
waxaad ogtihiin inuu jiray madmadow ama shaki ka jiray qaabka doorasho ee dalku galayo waxay reer galmudug u guntadeen oo ay garab ka saarteen inay gobol Soomaaliyeed dhigaan kana keenaan guul lana jiheeyo doorashadii dalka iyadoo maanta caawa la yaqaan qaab doorasho oo dalku leeyahay sida la socotaan waa rajaynaynaa walaalihii ka maqnaa inay ku soo daraan sida haddaba aad aragteen inay ku soo biiriyaan aragtidooda waxay qabaan ay sheegtaan annagoo markii horena ballan qaadnay haddana u ballan qaadayna inay soo dhaweynayno walaalo naga maqnaa ay yihiin balse dalku wuxuu yeeshay itijaah iyo qorshe doorasho oo dhammaystir u baahan golaha baarlamaanka sharafta leh golaha sharci dejinta galmudug waxaan ka codsanayaa iskaashi isla shaqayn isdhamaystir lagu gaaro xasilooni siyaasadeed dhaqaale amni iyo horumar iyo barwaaqo waxaa kale fadhiga aan ku wadnaa inaan idiin soo gudbino hindise sharciyeedyo aad u badan oo muhiim u ah galmudug oo dhammaan hay-adaha dowladdu aanay shaqayn karin ilaa la ansixiyo ama la meel mariyo hindise sharciyeedyadaas oo runtii sida halkan wasiirkii u hadlay golaha wasiirada wasiir Axmed uu ka sheegay aynan badnayn wasaarado dhaxlay sharci la meel mariyay sidaa darteed shuruucda ama hindise sharciyeedyada ay xukuumaddu hadda soo wado waa badan yihiin waana ku kalsoonahay inay golaha baarlamaanku ka gudan doonaan waajibaadkooda oo dardar gelin doonaan howlaha ayaga halka ay ku leeyihiin waxaan sidoo kale baarlamaanka uga mahad celinayaa shaqadii la soo maray inaanay dhihin xukuumadda leh iyo xukuumadda ay u gaar tahay ay gacantooda ka geysteen hadday tahay dib u heshiisiin iyo hadday tahay howlo waaweyn oo mas'uuliyad Soomaaliya aan u qaadnay iyo hadday tahay galmudug gudaheeda inay ka geysteen gacan weyn oo baarlamaanku u shaqeynayeen si wada jir ah gacmo isqabsiya isku kalsoonaan ah taasna waxaan leenahay meeshiina ka sii wada aan wada hirgelino aan wada xoreyno aan wada qaadano inta noo dhiman insha Allah baarlamaanka sharafta leh waxaan leeyahay caawa noo ah habeen taariikhi ah oo uu noo furmayo kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda galmudug waxaan idin leeyahay guulaysta aan wada guulaysano mudanayaal iyo marwooyin baarlamaanka sharafta leh waa noo furan yahay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka labaad ee galmudug waana mahadsantihiin